qof dantuu lahaa dali dheer ka riday qof dantuu lahaa dali dheer ka riday mid dadweyne muu xalu dooni kari maqaldaayacow miyaad geel dib jiray dabadhoon u noqon بسم الله السلام عليكم دمانتين ومركلة يا برنامج كين سيرت النولشة هي حلقات كله ما أنت واحد نكود هذا الدونا موضوع عن صح حلي أو إنه كجود هذا الدونا لبا إري أما لبا شيء ودنت جود يدنت جار كله هذا إن بدن بالله يا وين استعمال شيء أما عاد مقشية ولا استعماله دنت جود يدنت جار كا لبدا إري ما أنت قيحينا كلا صارينا يعني midba meel ku suntayna oo in midba meel ku ogaanayna waa laga yaabaa in badan oo kamid ah aragtideeda inaydaan ila qaadan ama ay laga yaabaa in si kala aad ugu aragto laakiin waxaan rabaa inaan anigu soo bandhigo sidaan u arkayo danta guud waxaynu badiyaa u naqaanaa wax aad uga fog danta gaarka danta guud waxaynu u naqaanaa in danta gaarka la iska tuuro danta guud waxaynu u naqaanaa wax ka casiisan oo ka qurux badan oo ka wanaagsan danta gaarka danta gaarkaana waxaynu u naqaanaa wax yaroo qof ku kooban oo aan cid badan anficin oo mararka qaar dhaleecaynba noqota oo tusaale ahaan haddaan ku idhaahdo wasiirkaasi ama hebelkaasi waa qof dan gaara un wata waxaad markaa u fahmaysaa inuu qofkaasi yahay qof aan cid kale waxba tarin cidnaba aan magaranaysaa waxba ku filayn isaga iyo naftiisa uun ka shaqeeya baa laga yaabaa inaad u qaado bal taasaan rabaa inaan dood ka yara dhaliyo caawa taasaan rabaa bal inaan kolba dhinac kasoo hor istaago aynu ku noqonno abuurtii ilaahay qofka ibn aadanka abuuray abuurta ilaahay marka lagu noqdo badanka markaad shay ka soo bilowdo eber haddaad zero shay ka soo bilowdo waxaanu isla garanaynaa lambarkan ilaa haatan marayno aynu markaa ka soo bilowno abuurtii ilaahay abuuray ibn aadanka qofka ibn aadanka ilaahay kelidii buu abuuray kelidaabuu mas-uuliyad ku saaray mas-uuliyaddu ku saaray waa dhagahaaga waa indhahaaga waxaad ku aragto waxaad ku maqasho waxaad ku hadasho taasaana hadhow lagaa xisaabaya taasunbaa hadhow lagaa taasaa mas-uuliyadaadii ah taasaa markaa dantaadii gaarka ahayd ah maadaama adigu samaanteeda iyo xumaanteedaba aad ka dheefayso ama aad ku wax waayeyso naftaadan iyo jirkaagani waa dantaadii gaarka ahayd waa dantaadii gaarka ahayd haddaba tusaale ahaan waxaad doontay inaad gabadh guursato gabadhaas waxay markaba eegaysaa ama ruuxa lamaanaha doonaysaa markaba qofkaasi wuxuu eegayaa dantaada gaarkaasaad uga soo baxday sidaad adigu isugu filan tahay sidaad adigu mas-uul isaga tahay sidaad adigu wax u noqon karayso sidaad adigu isu cabirto halbeegaad isu qaadato ayay kolba eegaysaa isku filnaanshiyaha aan halkaa hoosta kasii xariiqa weliba isku filnaanshiyuhu ma aha tajeebka oo qura isku filnaanshiyuhu waa xag kasta waa qof xilkasa mas-uula isagu aan cid kale wax uga baahan ma garanaysaaye qof ma garanaysaa niyadsan oo isagu aan cid kale waxba u baahan ruuxa dumari markaba waxay eegaysaa adigu sida aad isugu filan tahay way adag tahay inay kuu aragto ninkeedii way adag tahay inay kuu aragto caruurteeda aabahood way adag tahay inay kuu aragto qof lamaano ah haddii aanad adigu isku filayn marka hore haddii aanad adigu marka hore dantaadii gaarka ahayd ka soo bixin haddaba aynu ka soo qaadno adigoo iska dhacdhacaya oo marna wax hela marna wax waaya ma garanaysaa adigii iska baaxaadega ka soo qaad in ilaahay gabadh kuu calfay 10 caruurna ilaahay idin kala siiyey waxaa dhacaysa qofkii dantii gaarka ahayd oo isagu lahaa intuu ku filaan waayey cid kale soo xirogeliya ciddaa kale uu soo xirogeliye marka haddana dantiisii gaarka ahayd bay noqonaysaa xaaskaaga iyo caruurtaadu dantaadii gaarka ahayd bay noqonaysaa maadaamay mas-uuliyadaadii noqonayaan waa dantaadii gaarka ahayd bay kusoo biirayaan ciddii markii hore danteedii gaarka ahayd kasoo bixi weyday kolka mas-uuliyad kale ay dheefsato waxaa dhacaysa dantii guud inay si dadban wax u yeesho oo tusaale ahaan qofkii isagu aan markii horeba isku filayn markii uu xaas kale la yimaado oo caruur ka dhalo ee caruurtii kale bay hoofto ee ma garanaysaa isaga iyo xaaskii isla il daraadaan ee ma garanaysaa mid tahriibo mid la waayo mishkiladii iyo culayskii waxay ku soo noqonaysaa bulshadii waxay ku soo noqonaysaa xigaalkii culayskii wuxuu ku imanayaa dantii guud waayo qofkaasi raaska iyo reerkaasuu u unkay si aan markiisii hore ma garanaysaa bilowgii hore
raaskaa iyo reerkaa wuxuu unkay si aan isagoo marka hore aan dantiisii gaarka ahayd iyo mas-uuliyaddii ilaahay isaga saaray isagoo oon ka soo bixin ayuu cid kale soo xerogeliyey. markaa taasi waxay keenaysaa inuu si dadban wax u yeelo dantii guud. markaa dhinac markaynu ka eegno danta gaarkii waxay ku xidhan tahay danta guud bay ku xidhan tahay. haddaba inaga oo tusaalaha kasoo shidaal qaadanayna markasta mushkiladda ugu weyne Soomaalida haysataa waxa weeyaan sidaa tusaalaha hore aynu ku soo qaadanay qoftiisii hore cuslaysay, qof naftiisana cuslaysay, qof aan isagii mas'uul ka noqon, qof aan isagii iyo xaaskiisii mas'uul ka noqon, qof aan isagii iyo xaaskii iyo ubadkiisii mas'uul ka noqon, qof aan ubadkiisii iyo reerkiisii hogaamiye u noqon ayaynu xil kala saaraynaa oo aynu odhanaa kaalayo hogaamiye noo noqo. qof maqal daayacay, qof maqashii daayacay baynu geelo dirsanaynaa. qof aan kabihiisii tolan kari waayey baynu odhanaa kaalayo kabahaygana noo tol. qoftiisii daryeeli kari waayey aynu odhanaa kaalayo taayadana noo daryeel. mushkiladda ugu weyne markaa ayna haysataa waxa weeyaan qof dantiisii gaarka ahayd kasoo bixi waayey baynu u dirsanaa badiyaa danta guud. sabab kalena ma aha, waayo danta gaarka ah ayaynu u haysanaa wax xun oo ma garanaysaa aan waxba ka soo bixin oo aan shaqo iyo shuqul ku lahayn danta guud. sidaana ma aha xaqiiqatan. qofka caynka ah ee iska dhacdhacaya ee ubadkiisii aan caawa meel ku sheegi karin ee markaas qofka iska daalaadhacaya ayaa la boqoraya ee la odhanaya reer wanaagsan oo tiro badan baad ka dhalatay kaalayona hogaami. halka mushkiladda ugu weyn ka timaada waa halkaasi. haddaba qofka noocaasa markaynu xil u dhiibano, qofka noocaasa markaynu hogaamiye ka dhigano, laba midun bay noqonaysaa. qofkaasi inuu isiraahdo waa reerkii aradnaa, reerkii aan dabka loo shidin, mas-uuliyaddan iyo cashuurtan iyo waxaan ummadda lagugu dhiibay horta marka hore reerkii kusoo arad bixi oo culayskii reerkan kaa haystay u gee. deed waa tabadiyaa dhacdo oo cashuurtii ummadda iyo waxaynu raggan u dhiibano ayaa badanka laga dhigaa biil caruur oo ubad baa lagu koriyaa. sabab kalena ma aha, waayo qofkani dantiisii gaarka ahayd markii uu kasoo bixi waayey ayuu dantii guud qaadayaa oo uu dan gaara ka dhigaya. qofka saasuu noqdaa. qof kalena wuxuu noqdaa qof daacada oo wuxuu isidhaahdaa iska ilaali waxaan ummadda kuu dhiibatayo uu ka fogeeyaayo. markaa waxaa dhacda qofkaasi inuu siduu marka dambe uga fogeynaya isaga iyo reerkiisii inay kala go-aan. isaga iyo reerkiisii baa kala go-aysa, waayo dantii gaarka ahayd, dantii magaranaysa xigaalka ahayd, dantii xaafadiisa ahayd, dantii ubadkiisa ahayd buu bidayaa inuu ka horreysiiyo danta guud. dabeed waxay kala go-ayaan xaaskiisii, waxay kala go-ayaan ubadkiisii, saasay u kala go-ayaan. deed badiya haddaad u fiirsato dadka siyaasiyiinta ee wax noqday ama dadka fanka ku jira ama abwaanin ha noqdo ama fanaanin ha noqdaan, badanka waxaad arkaysaa goortay jilcaan ee ay gaboobaan ee ay tamar gabaan waxa lagu leeyahay hebel oo caynka ay xaalad il daranoo cidtaa kulaysaa dabeed loo raadiyaa mar dambe. markaasaa la odhanayaa Soomaalidu waa bilaa abaal, waa caynkan iyo waa caynkan. qofkii waxaad arkaysaa haldoorka kuu ahaa oo intuu taag dareeyey meel jiifa oo cid allaaliyo cid caawisa loo taag waayo. sabab kalena ma aha, waayo dantii gaarka ahayd baynu fogeynay oo aynu laalnay. markaasaynu danta guud baa casiisa ee tan qabo. deed qofkii hadhow toole markuu dantii guud qaban kari waayo ee uu tamar gabo, waxa suuragal ah inay dadka qaarna wax taraan, dadka qaarna wax tari waayaan. kolba siday noqoto, kolba siday qofka ku noqoto ayay noqonaysaa. marka shakhsiyan anigu waxaan ka mid ahaa dadkii u arki jiray in danta guud laga gabiyo, danta guud loo hadlo, danta guud laga hadlo. laakiin waxaan ogaaday dan guud oo aan ahayn dan gaari ma jirtaba. qofku haddii aanu dan gaara lahayn, qofku tusaale ahaan haddii aan 8 saacadood meel fadhiyo oo aan qayilo oo aan maalin kasta meesha fadhiyo, dabeed aan ku soo hor fadhiisto kaaga gabyo waqti luminta oo aan ku idhaahdo waqtiga ka faa'iideyso walaal, gabaygan wuxuu ka hadlayaa waqtiga, dee ima rumaysanaysid. danta gaara oo laga soo bixi waaya waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee khudbadaha iyo gabayada iyo wacdiga iyo waxaasoo dhamay ay saameyn u yeelan waayeen. waayo qofkii ayaan isagu muraayad u ahayn waxaanu ku hadlayaba. qofkii waxaanu danta guud ku bixinayo, waxaanu danta guud u hurayo, waxaanu danta guud u sheegayo ayaanu dantii gaarka ahayd gelinaynba. dabeed hadhow tolana waxay noqonaysaa lima taquuluuna maa laa tafcaluun bay noqonaysaa. haddaba su-aasha ugu weyn ee mudan in la isweydiiyaa waxa weeyaan, had may tahay inay danta guud ka shaqeyno, had may tahay in danta guud loo holado, had may tahay in qofku uu ka shaqeeyo danta guud. danta guud ma aha wax cid kasta ay ka shaqeynayso, ma aha wax cid kasta oon teedii ku filan ay ka shaqeynayso, ma aha
wax meel yaallo oo lagu boodo waa wax jaranjaro leh waa wax lagu garanayo waa wax lagugu garaabayo waa wax marka aad adigu isku filnaato marka culayskaaga aad adigu iska dejiso marka aad istiraahdo waxbaad qaban karaysaa waa wax loo hollado weeyaan maalin baa waxa dhacday inan yar oon ogaa inan yar baan ogaa in dugsigii sare ka soo baxay maalin baan isargnay waxaan ku war iska warano fiican tahayo dugsigii sare imika waad ka soo baxday baan maanaya waxa ka jaamacaddii maraysaa baan ku wari markaas wuxuu yahay 2 sano jaamacad maan gelino inuu danguudu maan ka shaqeynayay waa in yaroo 17 jir 18 jir meelaha wuxuu inuu danguudu maan ka shaqeynayay 2 sano jaamacad baba maan gelinba oo maxaad ka shaqeynaysay wuxuu urur heblaayaan galay kuwaas aanu caawinaa xafladahaas aanu ka shaqeynaa caynka iyo caynka iyo caynka waxaas aanu ka shaqeynaa wiigu marka mushkiladda jirtaa wax kale ma aha qofku marka uu danta gaara gabo danta guud buu ka dhex raadsadaa danta gaara danta guud buu ka kalluumaysanaya danta guud buu ka soo tukaamaysanaya danta guud buu ka raadinaya lacag danta guud buu ka raadinaya sumcad danta guud buu waxyaabo noocaas ka raadinaya waa marka qofku aanu marka hore dantiisa gaarka ka soo shaqeyn dabadeed wuxuu koonayaa dan guud baan ka shaqeeyaa danta guud kama shaqeeyo ee isaga naftiisa uga shaqeeya isaga ama lacag ku hela ama dheef kala ku hela ama sumcad kala ku hela waxyaabo noocaas marka aynu barana waxay danta guud tahay aynu baranana waxay danta gaari tahay danta gaari xumaan maaha cay maaha waa waajib ay tahay qofku inuu soo maro waa marxalad ay tahay qofku inuu soo maro waa jaranjaro ay tahay qofku inuu soo maro intaanu danta guud ka shaqeyn haddii kale danta guud qofku ka kalluumaysanaya uu ka tukaamaysanaya qofku danta guud kolka danta guud yeynaan ka dhigin in danta gaara la fogeeyo danta gaarana yeynaan cay iyo dhaleecayn ka dhigin ma jirto dan guud oo la samayn karaya ma jirto dan guud oo lilaahiya oo qofku samayn karaya ma jirto dan guud oo magaranaysa si niyadsan oo laab xaaran oo qofku u samayn karaya isaga oon dantiisii gaarka soo fushan qofku haddii culays saaran yahay dan guud ma fulin karayo marka cidda aynu danta guud u dirsanaynaa ha ahaato cid marka hore danteedii gaarka ahayd magaranaysa soo fushatay cidda aynu hogaanka iyo xilka u dhiibanaynaa ha ahaato cid teedii soo fushatay hogaanku badiyaa ma aha un madaxweynayaasha hogaanku macallinku waa hogaanka kalaaska maamuluhu waa hogaanka dugsiga magaranaysa meel kasta hogaan bay leedahay cidda aad hogaanka u dhiibaysaa ha ahaato cid adiga kaa culays yar ha ahaato cid markaad adigu isbarbar dhigto danteeda gaarka ah iyadu kaa soo horfushatay oo magaranaysa iyadu kaa soo hordhamaysatay waxaan kusoo gabagabeynaynaa xalqadeena waxaan kusoo gabagabeynaynaa beedidka aynu markii hore ku bilownay ay ka midka ahaayeen qof dantuu lahaa dali dheer ka riday qof dantuu lahaa dali dheer ka riday mid dadweyne muu xalu dooni kari maqal daayacow miyaad geel dib jiray dabadhoon u noqon